shirkaas jaraa'id oo ku saabsan la dagaalanka qawaariijta iyo taageeridda madaxweynaha jamhuuriyadda uu kula dirirayo argagixisada waddankan kusoo duushay iyo dadka deegaanada hawiyad degan oon rabna inay mataqaanaa dowladoorana taageeraan iyo ciidamada deegaanka ay biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan aan ugu baaqayno iyo midda kale ku diidayno dadka siyaasadeynaya dagaalka lagula jira kooxda qawaariijta oo dana gaara iyo wixii ay ka leeyihiinba mataqaanaa dagaalku inuu socdo dadka diidan inay ka waantoobaan asigana waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaan baaq kale u dirno dhahno war dagaalka qof Soomaaliyana reebi maayo dawladaha diriskana reebi maayo beesha caalamka dadka nagala joogana ka tigi maayo waa khawaariij waa fayraskaas beesha caalamka iyo Soomaaliyaba waxaan rabnaa inay u midoobaan odayaasha hawiyo halkan maanta shirka jaraa'id ku qabta waxay soo jeedinayaan inay khawaariijta lala dagaalamo oo dalka laga xureeyo oo ciidamada la garab istaago oo ciidamada deegaanka la garab istaago annanku mataqaanaa furimaha waana joognay haddana waa tigi doonaa xoog iyo xoolo waxaan haynana waxaan isugu geey doonaa la dagaalanka argagixisada sidaas darteed marka waxaan mataqaanaa dawlad goboleedyada iyo mataqaanaa dadka deegaanada deganba sida ciidamada qalabka sida ay ula dirirayaan inay ula diriraan oo garab istaagaan oo madaxweyne state iyo madaxweynaha federaalku sidoo tuutada u gashaday kuwa state-yaduna ay tuutada u gashadaan ay iguna dagaalka galaan state-yada wasiiradooda iyo mataqaanaa xildhibaanadooda iyo dadka deegaanadaas ka shaqeeya iyagu laftirkooda inay dagaalka sidaas u galaanaan ka codsanaynaa annankuna diyaar waxaan u nahay inaan cadowgaas la dirirno inaan dadkan ka xurayno gaar ahaan deegaanada hawiye baaqa odayaasha hawiye ay maanta soo jeediyeen waxaa la idinka rabaa inuu tamarkooba idin yeelo annankuna deegaanada waa idinkugu imaan doonaa waana idinla joognaa waana la dagaalami doonaa kooxdaas khawaariijta oo dalka iyo diinta dadka kusoo duulay